badhasaabka gobolka Hawd oo ay weheliyeen gudida nabadgelyada heer gobol ayaa kulan ballaaran xarunta gobolka ee magaalada Balligubadle kula yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd. kulankan ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay badhasaabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo heshiisiinta khilaaf dhawaan soo kala dhaxgalay golaha deegaanka degmada Balligubadle. waxaanu badhasaabka gobolka Hawd bulshada gobolka Hawd ugu bushaareeyay inuu meel fiican marayo soo afjarida khilaafkaasi isla markaasina waxa uu xusay inay si rasmi u bilaami doonto maalinta bariya hawl maalmeedkii shaqo ee dawladda hoose ee degmada Balligubadle. maanta xiisadii siyaasadeed shalayto waxaanu maanta sameynay inaanu la kulano bulshada ku dhaqan degmada Balligubadle oday dhaqameedyadooda fuqaashoodii odayaashooda dhalinyarada waxgaradkooda arrintaana waxaan uga hadalnay si fiican oo qurux badanna waa isugu afkaranay cidii sharciga wax ka tabanaysa ee xildhibaanadii shalayto sheegtay in ay maayir samaysteen waxaanu isla afkaranay oo ku heshiinay cidii sharciga wax ka tabanaysa annagoo odayaashii wax walba isku duuban inaanu sharciga u bandhigno oo aanu sharciga ku wada hadallo korkiisa shaqadii dawladda iyo xafiiskii dawladda ee ilaa shalay ilaa maanta u xidhnaa arrintaas siyaasadeed u xidhnaa iyaguna berrito haddii Ilaahay ka dhigo sidii loogu talagalay u shaqaynayaan bulshada degmada Balligubadle saasay ogaanaysaa wixii khilaaf jirana waxaanu ku dhamaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo wanaag baanu ku dhamaynaynaa insha Allah xildhibaanadana meel fiican bay noo maraysaa. Maxamed Jiciir Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.